waxaan baaritaan ku sameeyey bal waxaa meesha ka jiray xilligaas marka xilligaa waxaa la diidanaa inay go'aan kadibna dadka meesha jooga ee aan isaaq wixii aan ka ahayn ama waxaaba iskaba dhadaaba somalilander ina lasoo raafo ninkana wuxuu lahaa lama soo raafayo dadku wada walaalo weeye marka arrintii ba u hirgashay hawa maya waa intaa un raggii maalintaas saalaana waa baarlaman maanta marka arrintu teebun soo نقل ما دوش ما مغلس si toos ma duushaayo uma yene horta baashan اي كاد ابن معانو waxaan ku jirnaa hadda dood meesha la yiraahdo siyaasiyiin iyo wasiiro iyo ay qabanayaan waxa jooga ilaa iyo 4 caaqil oo laascaana jooga ka qayb qaadanaya waa dhageysan ka dhan la in ka badan 1000 qof aa daawanaysa culimadii ugu weyn sheekh ugu weynaa baa fadhiya caaqil kamid ah marka ooyay oo marka wuxuu leeyahay waxaan meesha ka socday iska daadeer dhulbahantii meesha jooga horaa loo wada raafay dheen caaqil kaale moogta meesha intii maanta hadhayna dadkii maanta hadhayna magaalada waa haawanaysaa marka ugu yaraan ilaa hadaad waa nala dhagay waa daawanka dhageysan ka dhan ilaa 5 caaqil oo hadda laascaana ku wada suganaa wadaadkii ugu sheekh ugu weynaa oo sheekhul beledka ahaa baa jooga aqoonyaankii oo dhan ilaa iyo 2000 oo qof aa daawanaysa haye dadkii meel la geeyay ma ogin buleeya bal adigu ma dooda waa hadaad jaanis yeeshaan waa ka qayb geli ka dhan waa daawan ka dhan waniyo waxa ku qoran dadka waxa ku qoran maxaa dadka laascaana laga raafay waa ku qoran marka wariyaal yaa soo furay meesha marka caaqiliintii oo dhan baa joogteen horta dadka qaarkood waxaad moodaa inay horta ay wax badan maaragtay indhaha iska tirayaan waniyo horta bahashan dadkan lasoo tarxiiray waxa weeyaan hadduu ilaahay kuu roon yahay dee sida xaqiiqiyana waxa weeyaan maamul ayaa horta arrinta mas-uuliyaddeeda iskale maamulka kama duwana dadkii hore maaragtay goobaha kale laga tarxiiray sidaynu ogeyn hadda ka hor magaalada boosaaso waxaa laga tarxiiray dad saan oo kale waxaana go'aansaday maamulka waxa weeyaan golaha deegaanka mataqaanaa maamulka waxaan ka wadaa waxa weeyaan gobolka bari maamulka gobolka bari wuxuu sameeyey dowladda Puntland buu waraaqada golaashaha ka qaatay kadibna waa iska soo tarxiiray isagoo u arkay in ammaanka khalkhal iyo waxa maaragtay haddii ilaahay ku roon yahay ay ku beerayso ganacsigeena xilliga culayska ugu badan ee nimanka laga tabanayay raxanweynta saqajaanimo iyo ganacsiga ayay ahayd waa laga soo tarxiiray maamulkuna waa ogolaaday nimankanna gobolka soolna sidii waagii dhaweyd saad ogtihiinba dilka ayaa maalmahan kusoo batay oo la garanayn qofkii maaragtay wax dilay iyo qofkii kale dadkan raxanweyntuna waa dad maaragtay hadduu ilaahay ku roon yahay dooda in si caafimaad qabta loo falanqeeyo ku habboon tahay dadkan raxanweyntuna waa dadka maaragtay hadduu ilaahay ku roon yahay shilimaadka yaryar iyo dee gacan ka fog telefoon lagu adeegsan karo dollar xogaa yaro dollarood kusoo shubto akoonkoogan bay ku xidhan tahay inay dhibaato geystaan waa dad iska noocaas horta maaragtay ilaahay caqliyan maaragtay jawgoodu saa iska iyo dawaatan magaala madaxdii ummadda Soomaaliyeed ba dhibaatada ka taagan dadka ugu badan ee ku mataqaanaa ay ka haysato waa eelayda markaynu indhaha iska tirayn marka gobolka Sool maalmahan haldoorkii iyo waxaas ayay mataqaanaa culaysyo badan soo wajaheen xildhibaan wakiil dilay waagii dhaweeda ogeydeen tiyon ciddi shiraadkeeda aanan la helin marka haddii ay waxgaradkii cuqaashi deegaanka gobolka Sool iyo maamulkii gobolka Sool ay go'aansadeen in maaragtay meesha laga saaro maamulka xataa ay ka tirsan yihiin Somaliland meesha system dawladeed baa ka jira halkan waa qabaayil iyo qabyaalad iyo waxaan hadda iminka qabiil baalkan iska qorane waxa weeyaan hadduu ilaahay ku roon yahay meeshaas cuqaasha iyo deegaanka marka lagu nool yahay meel walba system iyo nidaam bay leedahay systemka halkaa joogana dee cidda deegaanka iskale unbaa systemkeeda iskale systemkaas unbaana lagu soo shaandhiyay hadday markaa go'aansadeen inay meesha ka dhex qaadaan oo ay soo tarxiiraan oo maanta yoocada ay keenaan oo xaggan iyo garab u soo daajiyeen de maamulka xaggan kale Puntland iyo dhankana waxa iyagana ku sii waajiboon inay maaragtay hadduu ilaahay ku roon yahay ayaguna nidaamka isku sii dhaafin lahaayeen ay soo waxayeen walow horeyba u sii sameeyeen